السلام عليكم. kusoo dhawaada maanta warbixinteena ee maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo wararka qaar daafaha dunida isku daafdanaya. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. kusoo dhawaada xalqadeena maanta waxaa ka hadlaa su-aal halal u diraa muslimiinta joogto daafaha dunida. maanta waxaan ka hadlayaa sida adduunka oo noqday maanta ama sida adduunka isku bedelay. dalka Ukraine waxaa ka socdo dagaal aad u weyn oo aad u culus. halkan wuxuu kusoo socdaa muslimiinta oo jiifo oo cagaha dhulka dhigtay barkintan iskor saartay. maanta inaan si fiican aan hadlo. maanta muslimiinta waxay addoon u noqdeen gaalasha, waxaana ka koow ah dhaxal sugaha Sacuudi Mohammed bin Salmaan oo ku amray magaalada barakaysan Makka Mukarrama in lagu dhiso kilaab ilaamaha ku dhiilaan ku badboodaan, codkiisna kor loo qaado heer in la dhaho masjidka muxaramka Makka Mukarrama in la dhaho codkiisa hoos loo dhigo oo codka miiska kor loo qaado. heerkaas uu gaarsiin yahay. halaasna waxaa gaarsiiyey adduunka israacsiyaa iyo gaalasha oo asxaab uu ka dhibanayo. waxaa sababi guusha in maanta na dhaafto inteeda badan. maanta waxaan isu juuday gaalashii oo nabi Maxamed sallallahu calayhi wasallam uu ka faani jiray. dalka Ukraine dagaalka ka dhacay dalka Ukraine waxaa maanta aad iyo aad oo gurmaya ama maanta aad iyo aad oo helinaya yahuudda daafaha dunida joogto. laakiin unaka muslimiinteena maxaa isku hilanahay? maxaa noogu dhacay muslimiinteena? unaka Falastiin maalin kasta waa la baabi'iyaa, dhiigooda waa la daadiyaa, wax ka hadlaya ma jirto. wallahi muslimna ka hadlina jirin. laakiin yahuudda markay dagaal ay qaado ama dagaal oo ku dhaco saana loogu gurmadaa. laakiin unaka ma ogi muslimiinteena waxay ku dhacay. muslimiinta qaar dhiigga geesiyaasha way ku jirtaa. muslimka sidiisna ma daciifo, laakiin unaka iska dhigin inaad daciifno. hadda waa ujeedaan dalalka muslimiinta sidii Suuriya iyo Ciraaq sida loo baabi'iyey waa aragteen. Yemen sida loo baabi'iyey waa aragteen. Syria sida loo baabi'iyey waa aragteen. Qazakhstan kulli sidii oo wadamaha muslimka sida oo ku xisaabsan in la baabi'iyey. markii la baabi'inayay wadamahaas maxaa ku dhacay? madaxweynaha Masar oo dhulka Ciraaq Saddam Hussein waa liwaaxii koowaad ee carbeed waa la dilay. laakiin maanta inta geesiyaasha carbeed maanta dunida ku nool waayo waxaa la diiday inay ka mid noqdaan geesiyaasha muslimiinta oo gaalasha cabsi geli lahay. laakiin waa laga hortaba taas. laakiin muslimiinta midaas way garwaayeen, wayna ku fiirsadeen markii la dilaayay. laakiin maanta arrinta badnaantood way ka shalaan. gaalada ma ogola badnaankooda wadamaha muslimiinta inay noqoto nabad ama wadan oo amni ah inay noqoto ma ogola. kaliya waxay rabaan inay intii ulka loo sujuudo oo ulka sujuud loola cabis ulkan ilaahay ma ahe man sujuudeen. haddii muslimiin aan nahay, muslimka awood iyo quwad intaba waa leeyahay. maanta walaayina Falastiin wax wadama qadaya male. intaas sano ay ku jirtaa dagaalka wax maanta wadan muslim u helinaya male. waayo maxaa keenay? haddaa muslim uu isku dayo inuu u heliyo waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay argagixis inuu yahay. laakiin markii Ukraine oo la saacidaya ama adduunka dhan oo calankooda la qaato waxa waaye dad geesiyaal ah oo wadankooda difaacaya waaye. laakiin unaka muslimiin haddaan nahay wadankiina macnaa ma difaaca karnayso maaha. sheekadeena maanta meesha ku tahay. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. fadlan subscribe saar si dhiirigelin ugu noqoto oo kusoo badiyo muuqaalada noocan oo kalente. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.